waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkan aroornimo qaybtan waxaynu ku eegi doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya kuwoodii degdeg ahaa waxaan isdul taagi doonaa ma dhaba in maamulka Somaliland ay hor istaageen wafdigii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha oo shalay ku soo wajahnaa Muqdisho qoraal ka soo baxay dawladda Shiinaha war kooban oo Somaliland arrintan ay ka tiri xogo iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sababtii keentay in wafdigaasi ay baaqdaan iyo doorkii ay Somaliland ku lahayd ayaynu isdul taagi doonaa waxa kale oo aan halkan idinku soo gudbin doonaa dhammaan saldhigyadii uu ku lahaa Imaaraadka Soomaaliya ayuu albaabada isugu dhufan doonaa waxaase waji cusub uu yeelan doonaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxalulsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta iyo doorka muuqda ee ay Sacuudiga arrintan ay ku leedahay saameynta ay ku yeelan karto Somaliland xogo iyo macluumaad ku saabsan Axmed Madoobe iyo Deni oo markan ay soo wajihi doonto Rajabel iyo Quustii ugu dambeysay ayaan rabaa inaan halkan idinku soo koobo soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiina haddii ay idin tahay markii idinku horeysay oo channelkeena uu idin soo gaaro waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada inagu xiran aragtidiinana qaybta faalada ama commentiga ayaad kaga soo dhiiban kartaan xagaagka aan ku bilaabo maxaa ka jira in is-horistaag ay ku sameeyeen wafdigii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha maamulka Somaliland xogo iyo macluumaad dheeraad ah oo soo baxaya ayaa xaqiijinaya in sababo ay ku sheegtay Shiinaha dhinaca khatar amni iyo degniino xoogan oo soo gaaray ay dib ugu baaqdeen amaba ay dib ugu dhigeen socdaalkoodii ay doonayeen inay ku yimaadaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa la sheegay iyaga oo ku soo dhow garoonka diyaaradaha aadan Cabdulla Cusmaan aadan Cadde inay dib u laabteen amaba ay dib u laabatay diyaaradii siday wafdigan oo ka soo kicitay dhinaca magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaana la sheegay in fariimo ay gudbiyeen Somaliland iyo in ay toos u beegsanayaan diyaaradan isla markaana ay keentay inay dib ugu laabtaan dalka Shiinaha oo gabi ahaanba meesha laga saaro qorshihii socdaal ee wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha uu ku doonayay in uu ku yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maalintii shalay ahayd dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa saacado badan u diyaar garowday soo dhaweynta wafdigan iyadoo oo guud ahaan amniga caasimadda Muqdisho la sugay oo bandow lagu soo rogay wixii ka dambeeyay 12 saqdi dhexe habeenkii Jimcaha ahayd ilaa laga gaaro 10 subaxnimo ayaa gabi ahaanba hakad la geliyay dhaqdhaqaaqa guud ee shacbiga caasimadda magaalada Muqdisho qoraal ka soo baxay dawladda Shiinaha waxa lagu sheegay in ay ilaalinayaan madax banaanida Soomaaliya isla markaana ay jiraan digniino amni oo soo gaaray Shiinaha oo ku kaliftay in wafdigoodii Soomaaliya imaan lahaa gaar ahaan Muqdisho ay dib u dhigeen qorshaha socdaalkooda qoraal lagu baahiyay baraha bulshada waxay muujinayaan in Somaliland ay arrintan ku lahayd isla markaana xubno si aad ah u taageera siyaasadda Somaliland baraha bulshada ay ku soo bandhigayaan in iyagu ay ka dambeeyeen xogta dhabta ah waxay sheegaysaa in arrintan la xiriirta baaqashada wafdigii Shiinaha ee Muqdisho ay iyagu qoraal ka soo saareen sababo amni ku micneeyeen isla markaana ay garab istaagan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya oo ku celiyeen dawladda federaalka weli ma jirto war rasmi ah oo dhankeeda ka soo baxay hase ahaatee waxay u muuqanaysaa in Shiinaha oo saaxiib dawlaha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu furay albaab cusub iyo muujado sababi kara in dawladda Soomaaliya ay go'aanada ka qaadato maadaama Shiinaha ay dawladda federaalka ku eedeeyeen inaysan xaqiijin amniga oo habac dhinaca ammaanka uu jiro wixii macluumaad ah ka soo kordha arrintan oo la xiriira Shiinaha muuqaaladeena kuwan xiga ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii ay buuno uu qadaro dawladda Imaaraadka Carabta iyadoo oo shalay ama maalinkii xigay ee Khamiistii ahayd go'aan ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya guud ahaanba meesha looga saaray isla markaana la joojiyay isticmaalka hawada Soomaaliya diyaaradaha militariga ee dawladda Imaaraadka Carabta oo si isdaba joog ah u isticmaaliyay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso isla markaana keentay in ay ka gudbiyaan hawada Soomaaliya hogaamiyihii golaha kacaanka la yiraahdo ee dalka Yemen kaas oo baxsad ka ahaa dawladda Sacuudiga isla markaana ka dhuumaaleysanay amaba ka dhuumanayay Google ay Sacuudiga fadisay oo la isugu keenayo dhinacyada Yemen isla markaana uu ololeynaya in Yemen ay noqoto dal gaar ah oo la kala jaro tusaale sida Somaliland iyo Soomaaliya oo kale in loo kala saaro aadna u daneynay
xogo soo baxay ayaa xaqiijiyay in mas'uulkaasi uu dhex maray garoonka aadan cabdulle cusmaan aadan caddo waxaana toos u fududeeyay socdaalkiisa dowladda imaaraadka carabta. dowladda Soomaaliya arrintan carro xoogan ayay ka qaaday waxaana gebi ahaanba ay joojisay isticmaalka hawada Soomaaliya kana baxday heshiiskii ku qotomay in diyaaradda military ee dowladda imaaraadka ay toos u isticmaalaan hawada Soomaaliya. hase ahaatee qoraal xalay loo soo diray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayay imaaraadka carabta ku dalbadeen in loo ogolaado 10 duulimaad oo 4 ka mid ah ay ku tagayaan deegaanada maamulka Puntland isla markaana gebi ahaanba ay albaabada isugu dhufanayaan saldhigyadii military ay ku lahaayeen gudaha Soomaaliya. waxay tani soo afjari kartaa joogistoodii gudaha Soomaaliya iyadoo oo loolan siyaasadeed oo dhinaca juqraafiyadda ku qotoma imikan uu ka dhaxeeyo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta. waxaana la aaminsan yahay in siyaasadii Yemen ay isku qabteen ay keentay in gobolka intiisa kale arrintan khilaafkooda uu ay ku sii faafto oo ay markan ku xifaaltamayaan dalalka Afrika. xogaha iyo macluumaadka dheeraadka soo baxay waxay sheegayaan in Imaaraadka Carabta ay doonayaan in saldhigoodii Muqdisho iyo deegaano ka mid ah Somaliland ay ku lahaayeen guud ahaan ay albaabada isugu dhufanayaan oo ay ka daadgureynayaan saraakiishoodii dhinaca militariga ah ee ku sugnaa guud ahaan dalka Soomaaliya isla markaana ay faarujinayaan. waxayna u muuqanaysaa in Imaaraadka Carabta dalkii labaad ee looga adkaado oo ay ku loolamaan iyagii Sacuudi inuu noqonayo. dhawaanahan waxaa sii kordhayay isu soo dhawaanshiyaha iyo xiriirka tooska ah ee diblomaasiyadeed ee miro dhalka noqday ee u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya. khilaafka khaliijka markan wuxuu u muuqanayaa inuu soo daadegay dhinaca gobolka oo ay ku loolamayaan. Sacuudi Carabiya kol hore waxay ku goodiyeen in gebi ahaanba dunida goobaha ay saldhigyada military Imaaraadka ay ku leeyihiin ay ka cirib tiri doonaan iyagoo ugu yeeray in Imaaraadka aysan ka talinaynin xasilooni iyo amni balse ay markasta fawdo ay ka sameeyaan dalalka ay saldhigyada ku leeyihiin oo wax horumar ah aysan u ogoleen. waxaase jirta in xogta soo baxaysa ay sheegayso in dhowaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tagi doono dalka Sacuudi Carabiya halkaas oo uu kula kulmi doono madaxda ugu sareysa Sacuudi Carabiya waxaana markaas la saxiixi doonaa heshiisyo hor leh oo la xiriira dhinaca iskaashiga amniga ku qotoma ama difaaca. Sacuudi Carabiya ayaana booska Imaaraadka imikan toos u buuxinaysa. dowladaha Sacuudiga iyo Turkiga oo wada jirana waxay u muuqanayaan in markan Imaaraad dhinaca ay kaga soo jeesteen isla markaana ay doonayaan in siyaasadoodii Afrika gebi ahaanba ay soo afmeeraan. talaabadan waxay saameyn adag ku yeelan doontaa maamulka Somaliland oo saldhigyo waaweyn ay ku lahaayeen Imaaraadka Carabta door muuqdana ay ku lahaayeen in taageero dhaqaale ay siiyaan hoggaankaasi iyo inay u fududeeyaan xiriirada dhinaca arrimaha dibadda iyo dowladaha ay doonayaan in Somaliland la macaamilaan sida Israa'iil oo imikan u aqoonsatay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale iyo dalal kale oo sida Ethiopia, Kenya oo ay gacanta ku hayso Imaaraadka Carabta oo ay ku qasbaysay inay aqoonsadaan. waxaase jirta in ay dowlado qaarkood ay dib u dhigaan dhawaaqista aqoonsiga Somaliland sabab la xiriira in Imaaraadka uu ka sii raadgo'ayo joogistiisii qaaradda Afrika. si la mid ah kaliya Somaliland saameyn kuma yeelan karta arrintan oo waxa kale ay saameyn doontaa Axmed Madoobe iyo Siciid Dani oo la rumaysan yahay in Imaaraadka Carabta ay toos taageero dhaqaale iyo mid military ay u siin jireen. waxaana la sheegay in rajadoodii la xiriiray Soomaaliya ay imikan qoys ay sii galayso. waxaase go'i doono ishii dhaqaale ee Imaaraadka ka heli jireen. waxaase fashilka ugu weyn ee Imaaraadka ay rumaysan yihiin ee xilligan ay Soomaaliya kala kulmayso inay sababteeda lahaayeen Axmed Madoobe iyo Siciid Dani oo fulin waayay qorshayaal kor hore ay u soo dhiibtay Imaaraadka Carabta oo ay doonayeen in Soomaaliya oo siyaasadeeda xasiloon la carqaladeeyo si aysan u noqon fursad ay Sacuudiga kaga faa'iideysan karto. hadda marka la eego dulduleelka soo banaanaaday ee keentay in Imaaraadka Carabta meesha gebi ahaanba looga saaro. waad ku mahadsantihiin gunaanadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarteen saaxiibayaal daawadayaal.